siyaasiga Axmed Saafi sidoo kalena haatan musharaxa madaxweyne ee maamulkaasi Jubbaland ayaa ka hadlay xaaladii ugu dambeeyay sidoo kale dhibaatooyin haysta ciidamada maamulka Jubbaland isagoo sheegay in ciidanka ay ku adkaadeen bixinta kirada guryaha biilasha nolosha iyo masruufka caruurtooda sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada maamulka Jubbaland ay wajahayaan xaalad khatar ah sidoo kalena kooxda argixisada ee Al-Shabaab ay haatan ay heleen fursad ay ku helaan hub aad u xooggan maqaal dheer oo ku qoray bartiisa Facebook ayuu ku yiri siyaasiga Axmed Saafi sidoo kalena haatan musharaxa madaxweyne ee maamulkaasi Jubbaland qatarta ay wajahayaan ciidamada Jubbaland iyo Al-Shabaab oo helay fursad ay hub ku helaan kadib markii ay ciidamada Jubbaland ay la kulmeen daryeel la'aan iyo mushaar la'aan waxa soo baxay dhibaatooyin badan oo saameeyay noloshooda iyo tanqooskooda ciidamo badan ayay ku adkaatay bixinta kirada guryaha biilasha nolosha iyo masruufka caruurtooda iyadoo arintaas ay sii weheliyaan dhimasho dhaabac xarig iyo cadaalad darooyin kala duwan markii ay xaaladaas isbiirsadeen waxa bilaabmay in qaar ka mid ciidamada ay ka baxsadaan goobahooda shaqo intii lagu jiray 5 bilood ee la soo dhaafay asgar badan ayaa maray deegaano iyo sidoo kale goobo ay maamulaan Al-Shabaab sida Jilib Bu'aale iyo deegaano kale taasina waxa ay keentay in qatarta amni ee gobolka ay sii kororto iyadoo hub ay wateen ciidamada baxsanaya uu gacanta u galay Al-Shabaab arintani waa musiibo laba geesood ah ciidamadii Jubbaland ee muddada dheer la dagaalamayay cadawga ayaa qaarkood ku dambeynaya gacantiisa halka hubkii loogu talagalay difaaca shacabka uu sidoo kale gacanta u galayo kooxaha nabaddiidka sidaas darteed Al-Shabaab waxay heleen fursad ay ku helaan hub aan qiimo badan uga bixin kaas oo dib loogu adeegsan karo burburinta Jubbaland iyo guud ahaan deegaanada diriska la waxa sidoo kale ka xumaay wararka sheegaya in qaar ka mid shacabka leh guryaha kirada ay diideen inay sii dajiyaan ama ay ka kireeyaan ciidamada Jubbaland halka qaarkoodna laga saaray guryihii ay deganayeen ciidamadaasi waa kuwii habeen iyo maalin u taagnaa ilaalinta amniga shacabka iyo difaaca deegaankooda sida awgeed waxaan shacabka iyo ganacsatada Jubbaland ugu baaqaya inay garab istaagaan ciidamada qalabka sida una muujiyaan naxariis tixgelin iyo taageero xilligan adag ay wajahayaan Jubbaland ma mudna in la gaarsiiyo heer ay ciidamadeedu mushaar la'aan ku kala yaacaan marka uu hoggaanku noqdo mid aan lahayn aragti qorshe iyo maamul hufan waxa dhacda in bulshada iyo deegaankuba dib u dhacaan kana haraan horumarka ay gaarayaan bulshooyin kale ugu dambeyn waxaan leeyahay ciidamada Jubbaland waxa tiin geesiyaal u taagan difaaca dadkiina iyo dalkiina waan ognahay dadaalka nafurnimada iyo dulqaadka aad muujinaysaan muddadii aad adeega shacabka ku jirteen waxa uu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay siyaasiga mucaaradka Axmed Saafi waxaan idinku boorinayaa samir iyo adkeysi dheeraad anigoo ku kalsoon in dadaalkiina iyo geesinimadiinu ay gul ku dhamaan doonaan insha Allah